waxaynu kow ka dhigaynaa abwaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye oo runtii dadku ay badidooda u yaqaanaan inuu yahay fanaan kaliya. Cabdalla Yuusuf Hanuuniye marka koobaad waa nin mursada ah cidda uu ka yahay idinka ay soo qori doona. abwaankeenu waxa weeyaan marka koobaad waa abwaan midha sameeya ee barasho wanaagsan Soomaaliya. marka labaad waxa weeyaan fanaan. marka saddexaad waa mulxamiiste. marka afraad waa musician isagu musiga tunta. marka shanaad waa jila ruwaayadaha jila. runtii barnaamijkan bare abwaankaaga intii aan ku soo guda jiray waa abwaanka labaad ee aan arkay ee shanta shayba isku ah fanku ka kooban yahay. laakiinse abwaankeena weyn Hanuuniye isagu heese abwaano kale leeyihiin oo fanaanimo caadiya waba tuu ku caan baxay taasi. abwaankani mar gaar ah ayaynu taariikhdiisa ka sheekayn doonaa. waa abwaanka kaliya ee waa bari inta u baahatay la yiri imtixaan baa laga qaaday uu yiri imtixaan hadii la iga qaadayo uma baahniba. waa bari bila imtixaan ay ku qaadatay markii dambe. yacni nin isku filan u ahaa oo legend of the legend غني عن التعريف بان oran kara maanta inaan ka sheekeeyo ma Hanuuniye. wahagaag daawadayaal heesta koobaadin barnaamijka ka soo qabanaya waa hees qiso jacayl ah oo sidaan doono man ka heli yes sida doonto waad iga heliyo soo soco meedhana samri ma yeeron gobol kubul seexdoon sidaan doono ka helo sidaan doono ka helo samri ma yariguna seexan waayijibka sidaan doono ka helo sidaan doono ka helo sidaan doono manhiyey sidaan doonto wadhiyey oo soco. wahagaag heesta labaad ee aan soo qabanayaana waa taa cagsigeeda oo ah idaa naahoy idaa bal ila dhageysta iyadana. فانجعلوا إيدوين وقالوا heesaha kale ee Cabdalla Yuusuf Hanuuniye waxaa ka mid ah hadalkaan waan daboolaya dibadda waan u diidaya shookax adiga waan ku dameynaya jacaylkaan waan dagaalaya dibadda waan u diidaya shookax. wahagaag daawadayaal heesaha kale ee Cabdalla Yuusuf Hanuuniye waxaa ka mid ah heesta la yiraahdo dun xariira ama dadka qaar ay u yaqaanaan daruuraha hilaaciyo balse anigu waxaan ka soo qabanayaa beedkan ugu jecelahay dadamalaan harsanayo milicda iga daahiyo damalaan harsanayo milicda iga daahiyo yar adag ayaa too daxan iga dugsiyo dudurada biyahayo Hanuuniye heesihiisa uu isagu midhaha leeyahay waxaa kaloo ka mid ah kalgacaylka qaladkiyo wahagaag daawadayaal heesihiisa waxaa kale oo ka mid ah dantu ma laha ceebe dadkunbaa isku nacaya waa kan abwaanka oo ka hadlaya. toban maahan wiilka bidix maakii laba maad bahab la caaw qalgacaylku waa doq dumarka kan ka caasho dibiga raade madla waa jacayl dib uga hala away la degtay dantu ceeba ma lahe dantu ceeba ma lahe dadkunbaa isku nacaya. heesaha abwaanka waxaa kaloo ka mid ah heesta gorgor oo isaga laftiisa ayaa ku luuqeeya balse waxaan soo qaadanayaa markay farxiiska qaadayso
abwaanka heesiisa waxaa kaloo ka mid ah heesta ammaano yacnihii ammaanada in cirkii dhulkuba diiday culayska ay leedahay ayuu abwaanku ka hadlayaa yacnihii ammaanada ammaanoy ku gudan waaye axdiyow ku bogan waaye yacnihii maanta dadku sida ay arrimahaasi ka yihiin ayaad moodaa inuu cabirayo abwaanku heesihiisa kale waxaa kale oo ka mid ah heesaha wadaniga ah ee abwaanku uu sameeyey heesta guri guri ku dumay oo runtii uu 19 ka tiriyey guri guri ku dumay gacan gacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan heesta kale ee wadaniga ah ee abwaanka ka soo qabanaya waxa weeyaan heesta dalkii idinka qarribay abwaan Cabdalla Yuusuf Hanuuniye mar la weydiiyay heesahaaga heesteed ugu jeceshahay waxa uu sheegay heesta wadaniga inay tahay heesta uu ugu jecel yahay Cabdalla Yuusuf Hanuuniye heesahaaga teed ugu jeceshahay bad malay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay wahagaag daawadayaal runtii abwaanka Hanuuniye waxa loo yaqaanay in uu fanaan yahay balse imika ay qaybtan dambe waxaan ku soo qaadan doonaa bal heesaha uu isagu fanaaniinta kale caan baxay uu dhiibay ee aan loo aqoon isaga dad badan aanay u aqoonin heesahaasi waxaan ka bilaabayaa Axmed Cali Cigaal hees uu dhiibay waa kan Axmed Cali Cigaal laftiisa oo mar uu Cabdisalaan Hiriri waraysi ka qaaday isagoo oo sheegaya nin waxa jiray ilaa ay hadda aan la yaabo oo fanaaniinta waqtiga soo baxday kamid ahaa loo jiray Cabdalla Hanuuniye waxaan ka xasuustaa bay waliga wareeg dheer soo marta waqtiga way lumin ogtee wadiiqadan baliska raac haddaad weydana adduun hawalwaalane ilaah wuxuu soo wada sugo usamir waayaha usamir heesaas weydii oo midhaha isaga lahaa miya midhaha iyo codka iyo wuxuu dhan isaga lahaa waay wahagaag daawadayaal heesaha abwaanku uu fanaaniinta kale caan baxay uu dhiibay waxa ka mid ah ee Hanuuniye uu leeyahay midhahaasi heesta dhambaalada ama dadku yaqaan dhambaalada soo diro dhagaha uniga la soco run xaddi saban ayaa ku luuqaysa waa tan marka hore run oo ka hadlaysa oo sheegaysa eriyada cidda iskale iyo cidda u dhiibtay midhahana waxaa iska lahaa fanaankii Cabdalla Yuusuf Hanuuniye waxa kale oo ka mid ah heesahaasi uu fanaaniinta kala qaadaan heestan fanaaniin kalena way qaadaan isna wuu qaadaa waa heesta oonka biyaha loo cabaa oo matana gaajo waxa ku luuqaynaya fanaankeenii weynaa Maxamed Aadan Himilo waxa kale oo ka mid ah heesahaasi uu abwaan Cabdalla Yuusuf Hanuuniye uu fanaaniinta kale caanka u dhiibay hees ay qaado Khatrad Daahir Cige oo la yiraahdo caway maalin baa la yiri amaanadu waa culay erkiyadu ku diidayo adan wax leeyahay